markii labaad sanadkii labaad inaan kor shaqeeyo runtii muhiimadda ay leedahay iyo taariikhdeedii horaa loogu soo hadlay safiirka aad u faahfaahiyey waxaa kaloo ka dambeeyey ayaa ayagan faahfaahiyey runtii waxaa la yidhaahdaa dadka meesha ay ku yimideen aan garanaynin meeshay u socdaana ma garanayaan marka taariikhdeedii iyo halgankii hore iyo waxaasoo dhan waxay ku si macno badan leedahay caawa dadka halkan jooga dhalinyarada waxaas wanaagsan ee dalkii oo kala tagsan laba nooc oo gumaysi ku kala jira shan nooc oo gumaysi u kala qaybsamay laba ka mid ah isu keenay mideeyey hal jamhuuriyad ka dhigay dhammaan dhalinyaray ahayd odayaal kuma jiro marka mar walba dhalinyaradu ummadaha oo dhan door aad iyo aad u karaamala ay ku leeyihiin annaga Soomaali haddaan nahay dalkeenna haddii la dumiyey shalay oo aad sawiradiisa iyo burburkiisa iyo magaalooyinkiisa qaragteen si u burbureen dhalinyaro ay yeeshay oday 80 jira iyo islaan maxaan ku raadin 60 jira madaafiic iyo suugaan soo qaateen kuma tooro dhalinyaro ahaan ama wiilasha wiilish waa si badnaadeen gabdhaha maxaa ka fiiray qayb kulahay ma yaraatay haddana marka bisal waxay tahay haddii dib loo dhisayo oo daara dhaadheer oo xoolo New York oo kala taagtaag dalka inuu yeesho dhul barwaaqo iyo dadkii Soomaaliyeed oo nolol karaamada iyo sharaf ku jiro oo meel kasta caalamka qareen magac leh in la helana maanta haddana dhalinyarada u bisugisaa ka soo dhawaa marka dhalinyaro doorka ardaydihiin iyo cidda aad tihiin iyo mujtamaca Soomaaliya waxaa ka tihiin in aad iyo aad fahamtiin waa waxa kaliya ee Soomaaliya rajada ay ka leedahay waa jiilkaas dhalinyarada kii sharaf dhalinyaro ahayo anigoo kala waa ka baxay dhalinyarnimadii idinkuna maalintiina ka sii baxaysaa marka nin walba maalinta dhalinyarada tahay oo firfircoon tahay oo maxaan ku raacay caqligaaga iyo nashaadkaaga iyo fikirkaaga uu xoogan yahay maxaa qaban kartaa maalintaas waa maalinta mas'uuliyad ku saaran tahay berri haddaad waayo noqoto hooyo noqoto aabba noqoto maxaan ku yiraahdaa aad mas'uuliyad ku saaran ama awoodda aad ku gudaysid mas'uuliyad ku saaran way si yaraan maanta laakiin xooggiina la sugayaa wuxuu tahay marka waxaan rabaa marka dhinaca siyaasadda waxa loo dhaqaaqo Soomaaliya waa fiican tahay sida la sheegay haddaatay waxay soo martay taariikhdaas maalin meel ka soo bilaabo maalin meel ka soo bilaabo maalin meel ka soo bilaabo qof uu si dhigo weliba si isleeyahay waa isu dhiibi doonaa intii kale ilaa Soomaaliya fiican laga helo laakiin dhammaantiin waa inaan ku wada mashquulnaa oo ka shaqeynaa sidii Soomaaliya fiican oo xoog leh oo lagu faano oo la soo aado meeshaan ka adduunyada kala soo aadin nala soo aadanay sida aad u yeelan lahayd waayo waxa loo baahay waxaan waxay inaan war noqdo doorka dhalinyarada dhalinyaradu caqabadaha haysto shalay haddii dalka iyaga dumiye la leeyahay waa la isticmaalay si baa loo isticmaalay maanta marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inaan la isticmaalin ee ayaga doorka xaqiiqiga ay leeyihiin ay qaataan dadka inta fadhiya